الحب والرومانسية جعيل إيو رومانسي معناها نباني كو كهذا الجرعسين هاي يقبلوه كما غلي أوجيهن يقبلوه كما غلي أوجيهن والرومانسيكا إسلامي رومانسيكا اسمه إسلامي رومانسي يعني رقبات كما أما قال استعماشو مدينا دين تكو إمادي مدينا دين تكو إمادي والنبي كان عليه الصلاة والسلام وحاسس كيسه وكل رقم جري ومع عائشة يسوي لسه سيدو النبي يقول محيته ولا عيار جري وشيكين جري وقت ولا قادن جري كل ما كثار يكفي رسال marka hadii gabadha ninka jacayl ay ka dareemayso oo maxay ahayd ka aragto shucuur karaahiya oo dhibsanayo reerkaas iyadana ma dhaqmaayo ida meesha ka fiiriso waa mid kale inta gabadha maxay ahayd iyadana ka fiiriso dumarka aad u soo jeedo almadhu amaanta oo gabadha ninka u amaanay iyadana sidoo kale inta waxyaabaha dumarka qalbigooda aad u soo jiito oo ninka ku kasban karo gabayadana marka fiirisid gabayada Soomaalida ama fanaanka waxay ahayd fiirisid gabayada Carbeed ma jiro qof bani aadan maxay ahayd wax la amaanay oo dumar ka badan ma jiro gabayga saa u fiirisid maxay ahayd ama murtida u fiirisid ama xikmada inta dumar laga hadal laga dhahay ama jirkeeda iyada la sifeeyay noocyada qaabka u sameeysan tahay iyo suurada Ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala wax kaga daran ma jirto xagga amaanta tusaale u soo qaadano ninkii taariikhda galay ee loo yaqaan Majnuun Layla kii Layla u waashay marka arta beed kamida gabay buug diiwaan kaamil wiilkaas laga qoray waa wiil u maxay ahayd maskaxdiisa ku waayay maxay ahayd gabar yar oo jeclaaday oo ariga isla raaci jireen oo maxay ahayd loo diiday arabta dhaqan u lahaayeen markii ninka guurka ka hor gabar jeclaaday lama siin jirin inta badan marka asagoo yar ariga la raaci jiray marka Qays ibn Malo waxa la jiray wiil muslim oo ahaa waqtiga dawladda Umayya dhacday bilowgeedii marka gabaygiisa diiwaankiisa fiirisid laba beed markuu aqriyo beedka saddexaad kalimada Layla ku jirto ama jirkeedu sifeynaya ama akhlaaqdeedu sifeynaya ama jacaylku uu qabo sifeynaya marka madxigaas faraha badan ma jirto wax bani aadan uu aqriyay ama uu qaaday oo dumar waxay hay'ad kaga badan taa marka uu leeyahay xubbaha xubbal ula kunna qablaha wa halat mahallan lam yakun hullan min qabl jacaylkeedu wuxuu tiro yiri jacaylkii ka horeeyay dhan waxayna qalbiga ka degto yiri meel ay qof dumar ka degin marka uu hadaan u leeyahay maxay ahayd fa wallahi la adri idha ma dhakartuha athintayn salaytu duha am thamanin wallahi ma garanayo salaada ina laba ragcad tukaday salaatu duhada ila 8 ragcad tukaday marka shuf nin muslim ah wiil muslim ah marka hadaan laba ragcad tukaday ila 8 ragcad tukaday marka la garanayo marka maskaxdeeda ku soo dhacdo marka maskaxdeeda ku soo dhacdo sidoo gabadha uu amaanayo fiir sidoo gabadha uu amaanayo ma fiir marka idan marka amaanta waxyaabaha dumarka la isku dhaafay waa oo maxay ahayd qalbiga ninka ku soo jiidan karo waxa kale inta alhadith ma'a zawjiha sheekada laga sheekaysto oo gabadha la tixgeliyo oo warkeeda la dhageysto oo waqti la qaato iyadana waxyaabaha gabadha ninka ugu kasban karo oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waqti khaas iyo xasaaskiisa shariicadan ay fasaqad cishaha ka bacdi nabigu nacbanaan jiray sheeko banaanka ah in la qofka maalayan uu istaago ilaa labada qofood isqabta bas ina sheekaystaan waa loo ogol yahay marka cishaha kadib ama marka qaarkood ka hor hataa uu xasaaskiisa la sheekaysan jiray oo waqti la qaadan jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidoo kale gabadha ninka waxay ka fiirisaa almaal dhaqaalaha ay ka fiirisaa sidoo ninka xaaska u jecel yahay dumarka u jecel yahay almaal wal banuun ziinatu alhayat dunya marka ayadana waxay ninka ka fiirisaa dhaqaalaha inuu jeeb buuran leeyahay ay ka fiirisaa idan marka ragga waxa ninba ninku ka gacan furan yahay gabdhuhu ka jecel yihiin oo ninka gacanta adag lama jecelo dumarka markasta waxa u fiican qofka gacanta furan ayada dhaqaalaha aan ugu ciyaareen oo qofka israaf u sameeyeen oo inuu budget noloshiisa ku socdo yahay qorshe ku socdo wixii maxay tahay waxbarashadiisa iyo deegaankiisa meesha ku noolaan lahaa iyo ilmihi korintoodii caafimaadkoodii la hadana waxa fiican qofka maxay ahayd xaaska wax ku korinaysa in laga farxiyo oo maxay ahayd surprise iyo mufaajaat markasta aad siiso se ilmaha niyad ugu hayso se ilmaha ila korinta ilmaha waqti dheer ay qaadanaysa haday ka caajisto ama ay ka xanuunsato ama ay laadaadiso aday qasaare kugu taa marka waxa la rabaa markay umusho kale inta laga farxiyo markay maxay ilmaha waqti gelinaysa aad aragto carruurta ay tarbiyanaysa ina wax khaas ayada asiiso oo ka baxsan biilka ka baxsan taasna waxa ku kasbanaysaa niyad inay ilmaha u haysato inay tarbiyadooda niyad subax kasta soo kale carruurtii ka baxay kala shaandeynaysa waxbarashada geynaysa soo celinaysa marka carruurtii waxay u hayaan marka hooyada diyaariso ilmihina waxay way diyaarsamayaan taas marka ricaaya maca atfaal daryeel marka ayada daryeel xanaano xiriirada duruufta khaaska ay ku jirto naxariis marka kula dhaqanto gabadhaas waliga allaha kuma iloobayso waliga allahana maxay ahato kaama fuqayso marka naxariis iyo daryeel khaas ah siiso ayadii ilmaheeda
وحياته وكسبانيسا sidoo kale al-amaan wa adam al-khawf gabadha inaysan dareemin guriga ninkeeda la nooshahay inaysan cabsanin oo markaas hadaad sidii dictatornimo ula dhaqanto oo tira saan samee hadaa sameeysana waad baxaysa irida ka deganaysa sidaan samee qadii kale lagu diraya saa maxaa u sameysay isaan maxaa loo yeeli waa maanta goodin iyo maxay hato iyo waabis iyo cabsiin khalaas qof haduu ka baqay ma kula noolaan karo qof baqay waxa ma soo saari karo lan shakhsiyadiisu way maxay hato maxay hato waa broken oo quraca burburay waa neer jabay marka qofku iska ka aruurina wixii la qabanaa neer lagu ma qabanaa adaa insha Allah iska fiirina ama marka taas oo kale reerka kuma dhisnaan karo ilma fiican meesha kama soo baxay gabadhu waa inay ninkeeda amni ay ku haysataa aysan ka baqaynin aysan ka cabsanaynin ee fikirkeeda u cabiri karto ee waxay rabto u sheegan karto oo baahi korkeeda uu ka aqrin karo waxa duruufta haysato markay xanuunsantahay ama markay maxay walacta ama markay umultahay